الدولة ده فلتي مركبة سمايسة هي ذا دقائق مركبة أنت محامنا إنه العقد الدون دوينه بشت كدون دوينه قوارير الدون دوينه يسقوا الدولة كمبليرو ورقاتين ما عم كش خينا أنا وإننا نعنا ويابسن أناكو أذان كل شقين كورتان أو كل شقين هداد ديدو تادون بي أدا عرك كوب ودايما عدي أنا كل مياه ويتبدل كان ده دورت مركا وحن له يقعد كي خسارين يعني خسارين وحوي دتك عاد مقعودي و جو نمباهن وبعض مقعودي يعني باهيدا كوكو تشيري وان اوغاني ان مشاهر سمينيسي ان كوي شقي هايين مركي اورولي abaalun baad ugu ritay annaka horta annaka meesha joogaynaa runtaan kuu sheegay ilaa inta ixtiraaf leeriyo Soomaali dad noqonayso Soomaaliland dad noqonayso assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu meel kastoo joogtaan daawada waxaad ku soo dhawaataan Luqmaan TV waraysi kooban oo ka qaadaya xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Xasan Shaar oo ka tirsan guurtida Soomaaliland maalinta shalay toole gudoomiyaha golahaas waxa uu ka hadlay gudida nabadda ee madaxweynaha Soomaaliland dhawaan magacaabay oo uu fikirkiisa ka dhiibtay haddaba xildhibaanka ayaan arrimo kala duwan ka wareysan doona ugu horeyn waxaan weydiinayaa xildhibaan gudida nabadda ah ee 7 xubnood ee madaxweyne ciidan magacaabay ee gudoomiyaha golaha guurtidu shalayna ka hadlay maxaad ka oranaysaa sidaad aragtay bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan kuu salaamayaa TV-gan Luqmaan boqolkiiba boqol wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha dadka Soomaaliland ayuu mar walba ka shaqeeyaa aniguna waraysi waan siiyaa mar walba bismillaahir rahmaanir rahiim gudida 7 xubnooda horta madaxweynaha uu shaqeysaa laakiin qaranka kama duwan gashana dastuurkana kuma jirto guurtida ayuu labada golo oo sharciya marka ugu horeysa laakiin iyagu waa sharci daro waxaan oran lahaa madaxweynaha arintaasi adigay kugu xuntay dawladnimadaada madaxweynenimadaada dadaad mushaar u samaysan bay ahay mushaarkooda guryooda ku siiyo magacayaga ka dah magaca guurtida ka dah aad leedahay waa nabadeyn iyo waxaan kaas waxa weeye waan ogaanay inaad mushaar u samaynaysid inay ku shaqeeyay ahaayeen markii ololihii abaalun baad ugu ritay laakiin magacayagii goortinimo ayaa dib uga dhacday marka waxaan ku leeyahay annagu waan ku cafiyeynaa laakiin dib uga noqo intaasaan ku oranayaa iyaga laakiin xildhibaan dadka qaar waxay leeyihiin guurtida shaqadoodii gabtay oo nabadii iyo arrimahan ka shaqeynayno odayaashii waa daaleen muddo badan bay joogeen taa maxaad bismillaahir rahmaanir rahiim adeer waxa weeye ciidamada daashee waxa weeye marba waqtigeedii saacadeeda annagu markii hore horta waan shaqeynay oo boqol waan shaqeynay iminkana waa shaqeynaynaa diyaar baan u nahay waxa uu nacnaca mar walba madaxweyne uu la keenay oo dad wadwata uu gooniya oo dastuurkaba ku dhacmaqeen oo waxba ku noqon mid walba Silaaya ka mid ahaa ina biixaa ka mid ahaa kan baa ka mid ahaa iminka gudi magacaabay maxaan ka shaqeynaa maxaan ku shaqeynaa ana nacna waa yaabsanay waxa weeye waxa nacnacay oo sameeyay oo waxaas oo dhan sameeya waa madaxweynayaasha wax kalena ma dadku waa noogoli idinku inaad shaqadiina gudubeyda midi muuqan ma diyaar baan anagu taayada u nahay markaad aad isagu didu doonayo oo dirto maxaan ku sameynaa meeshii miyaan iska hor nimaadnaa oo isku qabsanaa meesha waan dib baan uga dhacnay oo waxaan dadka intaan la dirin idinku inaad hawlahaas kala gashaan diyaar baanu nahay mar walba anako diyaar garoono doonay ayaa dawladdu da fultay markaba sameeysa iyada dhaqaaqaysa markaba intaan maxaamanayne lacagta doondoonayne budgetka doondoonayne gawaarida doondoonayno isagoo dawlad kumbleero uu dhaqaajinaya xildhibaan idinku diyaar ma u tihiin oo ma diyaarsan xeerarkii lagu soo dooran lahaa ciddii idinkeedii bedel wali taasi waqtigeedaba ma hadee saacadeediiba ma muddo dheerna waan joognay muddo dheeroo dambana waan sugi doonaa waa joogi doonaa mushkilad ma laha adeer waxa weeye dadku iminka wakiilada ayay ka cabanayaan oy doorteen guurta mayaa la baabiinaya annagu horta annagaa meesha joogaynaa runtaan kuu sheegay ilaa inta ixtiraaf leeriyo Soomaali dad noqonayso Soomaaliland dad noqonayso
waxaa jirta intaan kaga imaado waad mahadsanta xildhibaan cabdiraxmaan shaaro xildhibaan magaalo celfi nabadeyn baa lagu soo gebagabeeyey arrintaas waa tii ugu wanaagsaneyd 100% horta halkaa guurtida ku jirtay 7 xubnood baa nagaga jiray halkaa 7 xubnood baa nagula jirtay way ku jireen iyagaa waayarka iyagaa wada ilaa madaxweynaha ilaa sulaandiida ilaa cuqaasha iyagaa wada hawsha iyagaa la hayay 7 xubnood baa hayay markaa horta marka hore nabadaasi 9 bilood 9 sannadood bay colaadaasi jirtay habar lambaan bay ahaayeen maanta meel wanaagsan bay maraysaa laakiin waxa haddii la fuliyo go-aan la gaadho aanay dowladdu ka daba tegin isku dhac unbaa imaanaya markaa dowladda waxaan odhan lahaa waa ilaahay inoo soo dhoweyn nabadii labadii reerna la heshiisiyey magtiina loo kala qaad 2,000 oo geelaa lagu kala xukumay boom baa lagu kala xukumay wax walba waa lagu xukumay haddaba muddaa loo qabtay muddadii dowladdu tallaabaa qaado oo markaa hortaagnaato oo dhammayso reer walba labada meeloodba ka shaqayso oo wixii lagu xukumay ha keento waaye sidoo kale xildhibaan waxaa jirta arrimihii qaramaynta oo madaxweynekii tiimkii wada iminkaas soo Britool Hargeysa lagu soo dhaweynaya taayada maxaad ka odhanahay horta waxa weeyaan madaxweyne ku-xigeenku 5 madaxweyne ku-xigeen baa ina soo maray waa kii ugu wanaagsanaa runtan kuu sheegayaa waa ninkii ugu haladka wanaagsan waa ninkii ugu quruxda badnaa Soomaaliya waa soo dhaweynayaa inkastoo 7 xubnood ila socotay oo gol ayagii Soomaaliya oo hagaysay shaqada la waday waxa weeye waan guurtadeedii iyo isaga wada shaqeynayay marka waxa weeye aad iyo aad ba madaxweynaha waxa weeye shantii madaxweyne ku-xigeen waa number 1 haddaan golaa guurteedana shahaadaanu siinayna haddaa la idhaahdo sharaf ayaanu siinayna golayagan ku xasumayna ugu dambeyntii maxaad fariin u diri lahayd arrimahan guddida nabadeynta iyo arrimahan khilaafkan adiga iyo xukuumadda soo kala dhex galay golihiin wallaahi dowladdani waa iska cusub tahay oo iska ma yaryar oo yaro baahaneen way ku jiraan madaxweynuhuna aad iyo aad buu u wanaagsan waa nin macaan laakiin waxaan odhanayaa war dadka kula shaqeeya ayaa madaxweyne walba baabi'iya war kuwaa un iska hubso annaku adaan kula shaqeynayna guurtaahan aan kula shaqeynayna haddaad diiddo daadun bay adaa cirka koobkoog laakiin dadkaasi yaan kuwadin haddii alla idhaahdo ka dhigin kuwii kula shaqayn jireen waa ka dhigin waxa weeye nin wala dangoonni uu wataa adigu madaxweyne waxaad ataa ninka u siman dalka isbeddelkan waabaan u codiyey horta marka ugu horta anigu kulmiyaan dee ahaa laakiin markii dambe iskumadkii berbelaan ku codiyey markaa isbeddelkii baan ku codiyey dee codkaygii yaan uga khasaari ya wadnay baan codiyey anoo kulmiya oo isbeddelkan dee doorta marka waxaan leeyahay yaan codkayga ka khasaarin yaan uga khasaarin waxa weeye dadkaa aad magacowday waa dee niman baahan unbaad wada magacowday yaan baahida kugu jiiri aad iyo aad baad mahadsan tahay xildhibaan cabdiraxmaan cismaan xasan shaadh oo aan magaalada Hargeysa wareysi ee Luqmaan TV ku siin